barnaamijka Social Science Forum waa barnaamij xoogga saarayo ahamiyadda culumta bulshada. waa barnaamij xaqiiq ahaantii isku xirayo social science ama culumta bulshada iyo bulshada Soomaaliyeed. wuxuu door weyn uu ka qaatay in ardayda Soomaaliyeed ay dhigato maadada social science ama maadooyinka ku kooban social science in ay la falgalaan aragtiyaha kala duwan ee social science ku dhex jiro. barnaamijkaas oo ahaa mid aad muhiim u ah oo soo kordhinayo aqoon iyo maaragtay waayo aragnimo loo yeelanayo aragtiyaha kala duwan ee social science ku jirto. dhammaan bulshadii ka faa'iideysatay oo ardayda ugu horeeyaan iyo dhalinyarada aad ay uga falceliyeen programka Social Science Forum. dib markaad u fiirisid bulshooyinkii hore hadda gaar ahaan bulshada reer galbeedka ee adduunka hadda in iyadu ay horumarka hormuud ugu tahay muujinaysa. waxa ay soo martay xilliyo lagu magacaabo fufkii ama maxaa la yiraahdaa ifkii Yurub. xilligaas waxaa aasaas u ahaa aqoon-yahano cilmiga bulshada xoogga saaray oo la imaaday aragtiyo cusub oo bulshada mugdigii ee Yurub ku jirtay ka soo saaray. kaasoo ku imaaday aragti is aruurintooda iyo baahi ay u qabto bulshada Soomaaliyeed in kor loo qaado. ujeedadii ugu weyneed ka lahayn oo ahayd in ogaalka kor loo qaado ogaalka bulshada Soomaaliyeed ee u leedahay social science-ka. waxaan rajeynaynaa intaan inay kasii balaarato. hiigsigeena Social Science Forum ahaan waxaa waaye bulshada Soomaaliyeed inaan cilmigan barno muhiimadda uu leeyahay. run ahaantii waa cilmi aad iyo aad u baaxad weyn, bulsho walbana muhiim u ah. sidoo kale tan jaamacadaha aan ku dhiirigelino inay soo saaraan arday baratay cilmiga bulshada oo aad iyo aad u adag bulshada Soomaaliyeedna wax ka bedeli. bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo cilmiga arrimaha bulshada si fiican loogama doodo, si qoto dheerna loogama hadlo, ahamiyadiisana lama fahansana. hadda waxayna ka mid ahayd sababaha aan Social Science Forum u asaasnay. hadda isbedelada aan la kulanay waxaa ka mid ah inay dadka fahmeen isla markaasna ay fagaara ka hadalka oo looga doodo social science-ka ay kasoo qayb galaan dad badan, isla markaasna ay isweydaarsadaan aragtiyo, fikrado si wanaagsanna ay uga doodaan. taasna waxay keentay isbedel. sidoo kale maadaama aan Soomaali nahay waxaa laga maarmaan noqotay in aqoon-yahanadii saameynta ku lahaa cilmiga bulshada ayadana inaan qaado dhigno. aqoon-yahanadaas waxaa ka mid ah Siciid Sheekh Samatar iyo rag kale. ugu dambeynna barnaamijkii hadda ugu dambeeya astaan ay naga caawisay soo bandhigistiisa oo aan uga hadalnay IMLUS.